gargaarka dhiigga baxa. Haddii qofku uu ku dhaawacmo addimada ama gacmaha sare sida gacmaha, waa in kor loo qaadaa oo jirka intiisa kale laga sara mariyaa. Hadda ninkan waa arkaysaa ujeedadu gacanta kor u qaado. Marka meesha dhaawaca kor loo qaadaa, hoos loo dhigo zaid u dhiig baxaya, maxaa yeelay xididada si toos ah dhiig u daadiyaan. Marka wadnaha si toos u soo tuuro, si toos ah dhiiggan u sii gamaya. Marka kor hadaa loo dhigo waxaa waaye wadnaha hadduu soo tuuro waxaa laga yaabaa dhiig inuu si badankiisa u kor aadin oo badankiisa hoos u noqdo, saasna uu ku yaraado dhiig baxa. Okay, 2. Cadaadis toos ah saar meesha dhiig baxa. Waxaa la rabaa inaad si fiican u qabato, si xoog leh u qabato, gacanta ku dhujis. 3. Haddii xubinta dhaawacantay ay tahay mid la xiri karo, ha ku xirin shay adag sida silig ama caangari. Sida meesha zaid loo xiro ama la dhunjiyo ama caangari wax lagu xiro, waxaa laga yaabaa gacanta qaybteeda kale inay dhimato ama dhibaato hor leh ay soo gaarto. Sidaas daraaddeed waxaa lagu xiraa maro sida muuqaalka aad ku arkaysid. Okay, 4. Wuxuu ku geey goobta caafimaad ee kuugu dhow. Qofkan u gargaari maro ugu xiray gacanta kor u qaaday. Marka waxaa isku dayay iyadoo gacanta kor u qaadan tahay, maro ugu xiran tahay, waxaana ka xiray dhanka wadnaha xiga, dhanka kale lagama xiro, dhanka wadnaha xiga laga xiraa. Marka waxaa isku dayay adoo saas u hayo oo ka xiray oo gacanta kor u qaado inaad wadid oo aad geysid isbitaalka ama goobta lagu daaweyn karo oo kuugu dhow. Okay, epilepsy nasal plate san-garorka. Qaybtan waa san-garorka, waa dhiig ka yimaada sanka waxaana keena waxyaabo kala gedisan. Mararka qaarna waxaa keena cudur disease ama jug. Disease cudur laga wadaa, trauma waxaa laga wadaa jug. Hadda meesha waxaa ka arkaysid kan waxaa waaye waxaa keena cudur, kan ujeedada meeshaan waxaa kaga dhaca jug. Qofka marka sanka feer looga dhufto dhiigga ka imaado infection oo sababa. Qofkan hadda waxaa ku dhaca infection taasoo dhiig uga imaado. Gargaarka san-garorka. Sidee qofka loogu gargaaraa? Qofka sanka ka qabo oo hayo muddo ka kooban 10 daqiiqo ama inta aad. Wuxuu ku yiri qofka sanka ka qabo, sida u gargaaraysa lagu sheegaa. Qofka sanka ku qabo haya lagu dhahay muddo ka badan 10 daqiiqo. 10 daqiiqo ka badan haynaysa sanka ka haynaysa ama inta aad ka hubinayso in uu dhiigu istaagay. Sanka ka haynaysa afka ka naysa qof.
Lambar labo, qofka sanka ka dhiigbaxaya waa in laga jiifiyaa ama la fadhiisiyaa Qodobka saddexaad, haddii kale waxaad sanka ka gelisaa faashad ama maro nadiif ah adiga oo ku haynaya waqti yar oo kooban, si dhiigga uga socdo oo u dhuuqo marada. Lambar afar, qofka waa in uu afka ka neefsadaa. Marka casharrada soo badato.